Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Halkan waa Waxsan Side Media. Fadlan haddii ay tahay marka uu kugu horeysay ee booqashada halkan, subscribe dheh, share dheh, like dheh, comment-na ka bixi. Maanta waxaan soo jeedin doonaa haddii eebba laga helo qiso dhex martay gabar camoolo ahayd iyo saaxiibkeeda. Waxaa jirtay gabar camoolo ah oo aad isku necbeed, qof walba way necbeed marka laga reebo saaxiibkeed. Nolosha ayuuna ku helin jiray. Waxay tiri hal mar haddaan indhahayga wax ku arki lahaa waan ku guursan lahaa. Maalin ayay waxay tagtay daarta indhaha lagu daaweeyo, qalin ayaana lagu sameeyey, wayna ku guuleysatay. Wax walba way aragtay. Saaxiibkeed ayaa weydiiyey, hadda wax walba waad aragtaa, ka waran haddaan ku guursado? Gabadhii way isku naxday. Dabcan maysan filayn in saaxiibkeeda uu aragga la'yahay, laakiin sababta uu aragga u baalan ay tahay iyada darteed, maadaama indhihiisa uu iyada u bixiyey. Markay aragtay saaxiibkeeda oo indhaha la, way ku diiday guurkii saaxiibkeed, wuuna iska baxay asigoo ilimeynaya. Warqad ayuuna u qoray. Warqadda waxaa ku qorneed, indhahayga le ii ilaali gacaliso. Dabcan aad ayay u murugo badneed markii qof aad jecleed aad indhahaaga darteed u bixisay, deetana aad indhahaaga siisay, deetana markii aad u sheegtid in aad rabtid inaad guursatid. Waagii hore dabcan maysan ogeyn sababaha ninkan inuu indho leeyahay, inuusan indho lahayn. Dabcan ma xaqiijin karin, laakiin markii indhaha aragtay ugu horeysana waxay aragtay saaxiibkeeda indho la, deetana way ku booday. Dabcan arrin yaab leh ayay dabcan kula tahay aan malaynayaa daawade. Laakiin qisadan waa qiso dhab ah oo dhacday. Waxaan filayaa dabcan inaad wax badan kaga bogan doontid insha allahu biidnillaahi alkariim. Bini aadanka dhaqsi ayuu isbedeli karaa. Waa ay yar tahay dadka soo xasuusta noloshoodii hore siday ahayd. Ma ogaan kartid qofka kula joogo qiimihiisa ilaa uu marka uu kaa tago mooye. Dabcan qofka marka uu kula joogo ma dareemi kartid qiimaha uu leeyahay, laakiin marka uu tago ayaad xasuusan doontaa qofkan qiimaha uu leeyahay. Noloshu waa hadiyad. Ka hor intaadan xumaan ku hadlin waa inaad ka fikirtaa dabcan waxaan aad ku hadlaysa saameynta ay yeelan karaan. Ogow inuu jiro qof aan hadli karin, mid aan wax maqli karin, mid aan waxna arki karin. Intaadan cuntadaada ka cabanin, soo xasuuso inuu jiro qof aan haysan waxa uu cuno. Ka hor intaadan la murmin xaaskaaga ama ninkaaga, xasuusnaaw inuu jiro qof heli waayey nasiibkaas oo nolosha keli ku ah. Dabcan iskaabulo badan oo awoodin inay reer yeeshaan ayaa iska jiri karo. Dabcan adigana waxaa haysataa nolol qurux badan. Noloshaas quruxda badan ayaana dhib ku dareemaysaa. Ka hor intaadan ka caban caqabadaha nolosha, xasuusnaaw inuu jiro qof dhintay oo ka faa'iideysan waayey nolosha. Dabcan qof baa dhintay 30 sano ka hor. Nolol oo maanta haddii uu joogi lahay wax badan uu ka qaban kari lahayne dabcan way taalaa, laakiin waqtigii ayaa u saamixi waayey. Marka waqtiga haysata ka faa'iideyso mar walba. Ka hor intaadan ilmahaada nicin, dabcan waxaa jiro dad badan oo ilaahay caruur siinin, adigana caruurtii ay haystay ayaaba karahsanaysaa, taasoo dhibaato kale iyadana ah. Ka hor intaadan ka caban hawsha guriga, dabcan gabdhaha inta badan guriga hawsha taalo aad bay kaga cabtaan. Ka fikir dadka darbi jiifta ah oo aan guriga haysan. Adiga waxaa ka cabanaysaa alaab baqitaanka, laakiin dad baaba guri iyo hooy iyo wax ay wax ku cunaan aan haysan. Adigana waxaa ka cabanaysaa alaabtan aad dhaqaysid. Ka hor intaadan ka caban xawaaraha gaarigaaga, ogow inuu jiro qof wadada aad martay soo mari waayey asigoo lugeynaya. Intaadan shaqada nicin ka hor, xasuuso inuu jiro qof raadinaya shaqadaada oo kale. Shaqo fiican haysataa, nolol fiican ku jirtaa. Haddana waxaa waaye shaqadaadii iyo waqtigaaga kama faa'iideysanaysid. Inta aadan ka faquuqin qof ceebtiisa ama qalad uu galay, xasuuso inaad adiga xitaa aad gashay qaladaad. Ma jiro qof aan qaldamin. Noloshu waa hadiyad. Ku raaxayso noloshaada. Dabcan waxaan rajaynayaa qisadan qiimaha iyo macnaha ku jira in aad u dhuuxin doontid. Aadaad u mahadsantihiin la socoshada muuqaaladan halkan soo gelino. Fadlan share.